war-saxaafadeedkan wuxuu ku saabsan yahay shaqaaqada ka socota koonfur galbeed khaasatan magaalada Baydhabo ee la xiriirta doorashada. marka hore inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay shaqaaqooyinkii ka dhacay magaalada Baydhabo labadii maalmood ee la soo dhaafay oo ay ku naf waayeen dad badan oo uu ka mid yahay xildhibaan Cabdishakuur Yacquub oo ahaa gudoomiyaha guddiga amniga ee golaha wakiilada koonfur galbeed. waxaana sidoo kale allaga baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo intii ku dhaawacantay, intii hantidooda ku weydayna bedel khayr qaba ayaan ilaah uga rajaynaynaa. sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay in la dooran karo waxna dooran karo. Mukhtaar Roobowna waa muwaadin Soomaaliyeed oo buuxiyey shuruudaha loogu baahan yahay musharaxnimadiisa sida ay caddeeyeen guddiga doorashooyinka koonfur galbeed oo guddoonsiiyey shahaado caddaynaysa inuu u tartami karo doorashada koonfur galbeed. dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qofna lama xiri karo xarig aan sharciga waafaqsanayn. awoodda dawladda marna looma isticmaali karo meel ka dhac dhanka ah karaamada iyo xuquuqda aadanaha. waxaa nasiib darro ah in dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed uu ka dhasho qabashadii Mukhtaar Roobow oo loo soo xiray si baalmarsan sharciga maadaama aan amar maxkamadeed lagu soo qaban. sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, heer kasta oo xukuumadeed waa inay haysataa kalsoonida iyo taageerada dadweynaha. sidaasi daraaddeed waxaa mudan in la xuso in shacabka dawlad goboleedka koonfur galbeed ay ka biyo diidsan yihiin faragelinta xukuumadda, ayna u baahan yihiin inay u madax bannaanaadaan aayo ka talintooda arrimahooda gudaha iyo inay doortaan cidda ay rabaan. waxaan ku baaqayaa in shacabka reer koonfur galbeed ay isdejiyaan, nabaddana adkeeyaan, sharcigana dhowraan. in guddiga doorashada koonfur galbeed ay dib u dhigaan doorashada madaxweynaha koonfur galbeed inta laga helayo jawi xasiloon oo ku habboon qabashada doorasho xor iyo xalaal ah. in kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed uu ka shaqeeyo dejinta iyo qancinta shacabka iyo dib u soo celinta kala dambaynta. in odayaasha dhaqanka ay muujiyaan kaalinta dhaqan ee ay ku leeyihiin nabadda iyo wadajirka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka koonfur galbeed. in musharaxa xiran xorriyaddiisa dib loogu soo celiyo sida uu ugu dhaqsiyaha badan, loona oggolaado in dib uu ugu noqdo deegaankii laga soo xiray si uga mid noqdo murashaxiinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed. sidaasi oo kale waxaan xukuumadda ugu baaqayaa xildhibaanada xaq waxay u leeyihiin dhaqdhaqaaqooda xor inuu noqdo. baryahan dambe waxaa bilaabatay in xildhibaanada loo diido deegaanka aniga aan degganahay inay u soo gudbaan. waxaan leenahay arrinkaasi arrin wanaagsan maaha. baarlamaanka xor ayuu ka yahay golaha fulinta, wuu ka madax bannaan yahay. waxaan leenahay xukuumadda waa inay ilaalisaa sharciga waddanka u yaalla, dastuurka waa inay ilaalisaa, loo oggolaada xildhibaanada xor inay u noqdaan dhaqdhaqaaqooda.